السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد عالي أكاديمي عشركني ومراجعة أما واريفيشن عشركنا وحو كسابسين يهي كلمة AM سيديبا الله استعمالها كلمة AM waxaynu isla eegi doonaa 5 siyood oo loo isticmaalo kelmadda am verb to be am oo ah aniga waxaad oran kartaa I am working oo ah waan shaqaynayaa waa present continuous waa wax hadda soconaya oo aad hadda samaynaysid present continuous sida labaad waa I am a teacher waxaad oran kartaa I am a teacher I am a student I am a doctor I am a nurse waa profession bay ka hadlaysaa waxaan ahay bare ama macallin I am at home gurigaan joogaa waxay ka hadlaysaa location taasina waa sida saddexaad sida afraad haddaynu isla eegno waa am plus adjective I am tall I am happy waan dheerahay ama waan faraxsanahay taasoo ka hadlaysa state ama feeling xaalad ama sida dareemayso sida shanaad ee loo isticmaalo kelmadda am waa I am Somali identity bay ka hadlaysaa taadina waxa tahay I am Somali I am British I am American waxaan ahay Somali halkaasina waa halkaas sida shanaad waa shantaas siyood baa kelmadda loo isticmaalaa am oo ah verb to be aynu eegno tusaale kale waxaad oran kartaa I am tired I am writing I am a doctor I am in the city or location I am Ali waxaan ahay Ali oo magacaygu waa Ali identity bay ka hadlaysaa taasina halkan waxa lagaaga baahan yahay inaad shantan sentence aad u turjunto Soomaali dabeetana commentiga nagula wadaagto aynu eegno qaybta ugu dambaysa casharka halkan waxa lagaaga baahan yahay inaad qorto 5 sentence adigoo isticmaalaya am shanta siyood oo loo isticmaalo am adigoo 5 sentence baad qoraysaa shanta siyood ee loo isticmaalo ee kelmadda am shantaas siyood oo kale ah feeling state present continuous profession location and identity marka shantaas sentence qorto nagula wadaag xagga commentiga iyagana casharkina intaasuu maanta ku eeg yahay thank you very much assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh